faahfaahin naga sii bal qorshaha aad kaga hortegaysaan cudurkan Ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cudurkan wuxuu marayaa cases ku firbadan yihiin ilaa 750 qof baa cudurka u dhintay ilaa 1300 waxa weeye dad uu saameeyay. marka runtii waa cudur aad iyo aad saameyn weyn ugu yeeshay galbeedka iyo dhammaan waaxiga galbeedka iyo Afrika oo dhan. marka waxaa la wadaa dardargelin hawlahaas oo wasaaradda caafimaadku ay ku dardargelinayso dadka sidii looga digtoonaan lahaa loola sameyn lahaa qorshe saami ah oo lagu dhaqmo. anagu wasaarad ahaan ka hortaga ayaa noo ah waxyaalaha muhiimka ah daweynta adeeg jeer xoog u xilsaanan in laga hortago cudurrada. qorshahayguna waxa weeye 5 sano aan sameynay wasaaraddu waxa weeye in cudurrada dilaaga ah kuwa faafay kuwa faafinba in runtii laga yeesho qorshe hawlad. كل كم يجي عذر يعني عذر يدورها السنة شباب عذر لوتي فيروسا والآن كان نوعي واحد دوينة خلينا إحنا غاصين لسكيل علينا نقوم ترابة وإحنا مركع عن السمينين وسارد عاصمات بالشرط بدل بيسميسي وأرجع في واحد بس واحدة عاصمات الجود أنا ذا مركع شركة بدينا لك عشان هايدا عاصمات كأدون كدبل نشوف ليدعنا دبل نشوف واحد مركع سلك غالبا دقيقة قرشها عن مكاننا دولة حساسات عالمين guidelines iyo policy document soo saartay oo dalalka caalamka dhan ay ku dhaqmayaan sida uu markaa loo faafin sida macluumaadka loo faafinayo sida loo isticmaalayo qalabada kala duwan ee ay ugu talagashay in cudurka lagu xakameeyo. intii qorshihii wada isla maadagay qorshaha waxa ugu horeeya horta wacyigelin dadka in la wacyigeliyo lana ogeysiiyo waxa uu cudurkan yahay. waxaa ku xigay qaybta tababarada shaqaalaha iyo dadweynaha shaqaalaha aan ku tababareynay si shaqaalihii la sugurto ay badbaadaan qaranka lagu badbaado. waxaa ku xigay oo kale qaybtii ahayd in quarantine center la sameeyo ama la sameeyo goobo dadka la geeyo lagu xakameeyo tendooyin iyo meelo badan waana calaamadsanay oo aan dhisangareynay meelihii loo baahnaa oo dhan waana calaamadsanay. waxaa jira 62 goobood marka waxaan jirtay bay ahaan jirtay 62 goobood baa marka ah meelaha entry-ga dalka laga soo galo. meelaha markii hore waxaan adeegsan jirnay cudurrada kale ee dilaaga ah sida dabaysha iyo HIV iyo wixii kale oo borderska dhan isticmaal ku yaala. goobahaas oo entry point meelaha badan ee dekedaha iyo airportada ay ka mid yihiin. goobaha in dadka haweenada la keeno hargeysa iyo meelaha ay joogaan lagu tababaro si markaa ay uga digtoonaadaan ay cudurkan. markaa waxaan siinay macluumaad kooban oo qoraal ah ayaan u gudbinay laakiin waxay baahan yihiin tababaro taasoo ku sheegaya qofka symptomska uu qabo iyo sida loo mataqaanaa la iska fogeeyo ku saabsan. markaa qorshahaasi runtii wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan guideline-kooda laga raacaynay iyo protocolka ay soo saareen waanu dejinay. waxaanu ku rajaweynaa bishan gudaheedaba inaan tababarada mataqaanaa iska bilaabano. qorshayaasha kalena dee insha allah waan si joogtaan inaan dadka ugala hadalno mareegyada internetka radioga tv-ga iyo dhammaan mataqaanaa wixii kale ee saxaafadda inaan dadka had iyo jeer si joogtaa ugu warramo. agaasime inta aad qorshahan ku guda jirtaan ee aad tababarada samaynaysaan ka waran haddii waddankeenu waa waddan iska furan xuduudihiisa waqti walba la iska soo geli karo ama airportka ha noqoto ama goobaha kale gawaadhida lagu soo gelayaba ha noqoto haddii qof xanuunkii qabaaba uu wadamada ay nagaga yimaado oo uu dalkii soo galo bal iyada ka waran sidee uga hortagaysaa? runtii saan ku sheegay waxa inta entry point ee dalka laga soo geli karayo sidoo kale waxaa jira surveillance system baa jira. surveillance systemkaas waxa weeye inaanu had iyo jeer ogaano oo ka warhayno cudurka sida cudurrada kala duwan ee dilaaga kaliinka iyo doolaha kale waxaan saarnay focuskan saarnay wax micnaheedu noqonaysa inaanu xilid la leenahay dalalka kale kaarkaan nahay. surveillance systemkooda iyadoo marka hay'adda caafimaadka adduunka ay noo fududaysay inaanu surveillance systemada ogaano. hal waxa weeye inaanu ogaano meelaha ay kasoo geli karayaan cudurkan ka iman karayo. طبعا سمعنا واحد لنا حرير بلنا شوكتا waxay u badan hataa ganacsi oo ganacsigeedu ay meelo ku tagaan. marka waxa weeye inaanu iminka airport oo kale dhawaan waxaan ku furnay rug caafimaad taasoo lagu talagalay inaanu xusaashta iyo cid kale baxaysa iyo cid walba aan weydiino inay sitaan kaarka caafimaadka kaasoo markii lagu talagalay inaanu yellow fever iyo meningitis cudurka la sida inaanu ka talaalo oo dadka ay tigiyaan saan ugu heshiiyay
laakiin waxaa noqonaysaa in macluumaadkii iyo basiga aanu dhigno form baa jira la dhigayo airportka oo jira oo aanu sameynay kaasoo markaa qofka la weydiinayo meesha uu ka yimid iyo halkuu joogo sidoo kale tababarada simbalka ayaanu siinay waxa weeye inay qofka eegaan muxuu ahay symptomskiisa hay'adda caafimaadka adduunku qalabkii waa saan kuu sheegay wigan ayaa la rajeynaya inuu yimaado laakiinse waa run dad iska masaakiin bayna oo dee fuqara laakiin saa micneheedu maaha inaynu nahay professional manihin micneheedu waxa weeye professional aad baynu dadka aad baynu usoo jeednaa professional fiican oo dhakhaatiirana mataqaanaa noo soo baxay anaga qorshe hawleedkaygana waxa weeye inaan soo saarno dad strategically fahansan human resource aada tayo fiican wana fahansan dabcan waynu dhaqaale uu yaryahay laakiinse micnaheedu waxa weeye macnaheedu maaha inaynu nahay professional aada u wanaagsan baynu nahay runtii oo aad iyo aad baan mataqaana ugu faraxsanahay inta hawlwadana noo shaqeysa laakiin si aan kasii kordhino oo aanu mataqaana runtii qorshaha wadno ayaan jeclna marxaladda wax uga qabano agaasimo goodi cismaan xuseen ma hawl yara in aad tababarka 62 goobood aad qabataan yaa idinka caawinaya qarash intee leeg baase ku baxaya waxaanu kolley waxaanu wasaaradda caafimaadka iyadoo ka duulisa baahiyaha iyo dhibaatooyinka iyo soo food saaray ama aynu ka digtoonaanayno cudurkan inuu u gaashaamano wasaaraddu waxay leedahay waxaanu sameynay anagu inaanu anagu yani wasaarad ahaan anagu aan cidna weydiisanayn kharash in wasaarad ahaan horta anagu isweydiino maxaynu qaban karnaa maxaynu awoodi karnaa hay-adaha caalamkuna had iyo jeer waxaa jira dalal fara badan oo naga caawiya caafimaadka iyo dalal fara badan hay-adda caafimaadka dib waxa loo sameeyey inay caafimaadka wixii takhasus ahaan ay soo saarto protocolkii policiyadii guidelineskii iyo wixii lagu shaqeynayay recommendationkii marka taa horta wax caalamiyan oo aynu la wadaagayno dalalka oo dad baynu la wadaagayna caalamku yaalla sidoo kale inaynu markaas yani meel uga soo wajeesano standardka lagu shaqeynayno noqdo standardka hay-adda caafimaadka adduunka ay dejisay taa micneheedu waxa weeye resourcekii iyo kharashkii laynagu soo dhiibay dowladaha ay ku shubeen wasaaradda hay-adda caafimaadka adduunka horta inaynu tiina ka qayb qaadano wax ka hadlo waan rajeynaynaa hay-adda unicef iyadoo sidoo kale qaabilsan arrimahan logisticska iyo supportka iyo dadweyntana iyadana waanu ka sugaynaa inagana taa micneheedu maaha marka in dowladduna ay iskaabiso laakiin dowladduna inay contribution ka geysato oo iyadoo ay wax walba uqurseeto iminkaba goobaha caafimaadka anagaa dhisanay anagaa sameynay 53 bay ahaan jiray 62 baan ka dhignay sidoo kale airportka iyo dekadaba anagaa ka samaysanay xarumaha oo iyadoo aan cudurga caawin dowladdu waxa weeye wixeedii inay ka geysato lacag ka baxaysan waxaan la qiyaasaynaa ilaa 50 faceka hore ilaa 150 rajkilan insha allah agaasimo waxaa la isweydiin karaa maadaama uu cudurkan yahay cudur aada halis u ah dadka loo tababaraya khibrad intee leeg ayay yeelan doonaan yaase tababaraya ma dhakhaatiir gudaha ah mise dhakhaatiir ajanabiya runtii waxaa jira cudur kasta waxaa jira protocol guideline marka hore la sameeyo kaa micnaheedu waxa weeye in markaa sidii loo tababari lahaa sidii laiska fogeyn lahaa agabkii la isticmaali lahaa ay noqoto PPE personal protective equipment-ga disinfectant-gii waa tababar gaara ayaa WHO hay-adda caafimaadka adduunka ay isla garteen oo ay dal kasta oo dalalkan ay dhibaatada haysato ay ka sameeyeen oo loo sameeyey tii baynu markaa inagu raacaynaa waxaa tababari doona ugu horeyn international staff loo tababaray baa inoo iman doona international staffkaas waxay inoo tababari doonaa tababarayaasheena maadaama cudurka cudur cusub yahay inaguna markaa trainers baynu samayn doonaa kuwaasaa markaa inaguna xirfadii la soo xari doona marka tababarada nabada wuxuu isdaba jooga goobaha iyo meel kastoo mataqaana gooba caafimaad waxaan doonay inaan geyno insha allah waa gartay doctor waxaa jira dad ajnabiyahoo tiro badan oo ka shaqeeya wadankeena habeen iyo maalinbana socdaal ku yimaada ama ururada ha u shaqeeyaan ama hay-adaha kale dowladaba ha u shaqeeyaan dadkaasi oo kale qaarkood waxba ay nagaga yimaadaan wadamadan uu xanuunku ka dilaacay dadkaasi oo kale maxaa lagaga hortegi karaya waxa weeye horta dadka inoo caalamiyan waxaana dal ku xidhan caalamka saad sheegtayba dad baa jira fara badan oo yani ka yimaada Europe oo weliba qaybtan lagu jiray former Soviet-ka dalalkan qayb ka haray raashaankii ayaa runtii dhakhaatiirta ugu fara badan iyo meesha ay nooga yimaadaan dalalkaasna nasiib wanaag wax dhibaato ah oo laga sheegay cudurkaas ma jiro cudurku iminka wuxuu ka horeeyay africa dhakhaatiir inooga yimaado habeerato anaga noo diiwaangashay shaqaale ajnabi oo kale inooga yimaadaan dabcan dad soo mara oo dad soo mara oo kasoo kala soo mara yani way jiraan oo maray kasoo dhigta laakiin saa horeba kuu sheegay dadkan waxay la mid yihiin dadkan kale aanu saarayno
screening processkaas aanu saari doono oo mataqaana mid qasada noqon doona isaa ula socotay marka hore wuxuu ku bilaabmi doonaa si jilicsan laakiinse si simple laakiin waxaan sheegayaa in marba marka dambe xoogaysan doono dhakhaatiirtana yani waxa kamid yihiin dadkan ba kamid yihiin laakiinse anagu sida la socotaa mar waxaa jirta hay-ad aanu samayno caafimaadka loo qaabilsan oo u qaabilsan inay dadka dhakhaatiirta ee imanaya inay eegto shahaadooyinkooda waxay sitaan inay yihiin dad jira oo shaqeeya waana sii adkeynay sharciyadii marka kulli waxaanu isticmaali doonaa habka kala duwanaya aanu isticmaali doono aanu samayno kooxahan caafimaadka ee ka hirgelinaysaan 62 goobood ee aad ii sheegtay ee ka hortagaya inaan cudurkaasi dalka soo gaadhin amaba aanu ka dhalanin muddo intee lag bay sii shaqayn doonaan ma wax socon doona ilaa iyo weligoodba mise waa wax waqtigooda kooban yahay waxa weeye horta marka ugu horeysa waxa weeye immediate iyo waxa immediate iyo midterm long term marka waxaan jecelnahay inaanu anagu immediately waxaan qodobada bilow dhexdhexaad iyo dhammaad bad ka wada ha yani dhexdhexaad ugu horeyn dhexdhexaad iyo dhammaad waxaan doonayaa inay waxay noqdaan wax joogtaa cudurkani waa talo socotaan waa cudur laga qaybiyey Afrikada galbeed oo ka qaybiyey wadamada Sierra Leone iyo dalalka kale ku duubaa iyo Ivory Coast iyo waa aad ugu jira marka Nigeria dalal badan baa runtii saameyn weyn ay kaga timi oo dhibaato badan kaga timi inagu waxaan doonayaa marka ilaahay bay naga haynay insha Allah laakiin se inagu taa ogeyno isku dayayna inaynu xakamayno waxaan jecelnahay inay tababaraas iyo xirfadaas ay noo hadhi doonto mustaqbalka ay noo hadhi doonto ilahayna aynu inuu keeno cudurka aynu inoo keeno laakiin inaynu soo jignaano waxaan jecelnahay dadka khibradooda ku hadhi doontaa inaga ma hadhi doonto khibradu inaanu mustaqbalka fogna u sameyno qorshe fog kan dhow aanu sameyno kala dhexaadkan aanu sameyno markaasi ay noo noqoto wax dee inoo dhaqan gala insha Allah aad baad umahadsan tahay doctor Cismaan Xuseen Warsame agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka aad u wasaaradda